السلام عليكم وصاحبك شاهد بيساني saddex qayb ayaan kula wadaagi doonaa fiidiyogan qaybta koowaad waxay noqon doontaa su'aal aan adigu ku weydiin doono su'aashaasi isla fiidiyogan ayaan uga jawaabi doonaa jawaabteeda adiguna sida aad uga jawaabi doontid commentiga ayaad noogu soo qori doontaa haddii aad adigu naga fikir duwan tahay qaybta labaad waxay noqon doontaa afar talo ayaan kula wadaagi doonaa qaybta saddexaadna waxa ay noqon doontaa asxaabtayda Instagram-ka ayaan waxaan ku weydiiyay su'aal sida ay uga soo falceliyeen jawaabaha ay ka bixiyeen su'aashaasi haddaba su'aasha qaybta koowaad haddii aan ku bilaabo horta su'aashu waxay igu dhalatay mar aan akhriyay commentiyo aad u tiro badan ay Soomaalidu ka bixiso fiidiyoyaal qaar ah markii social media video la soo dhigo videogaasi uu yahay laba qofku Soomaali uu yahay gabadhu Soomaali ay tahay wiilkuna ajnabi yahay ay isqabaan ama wiilku Soomaali yahay gabadhuna ajnabiyad tahay ay isqabaan commentiyada marka akhrisid boqolkiiba 80 horta wanaag buu u badan yahay boqolkiiba 20 waxa laga yaabaa in caay ay noqoto ama fikrado qaldan ay ku soo qoraan fikradahaasi waxa u badan markii aan isku dayay inaan dadka qaar su'aalo weydiiyay waxay ku jawaabeen qof aanan isku dhaqan ahayn sidee nolol ula wadaagaya ama isku fahmaynaa markay dhaheen qof isku dhaqan aan hanay sidee isku fahmaynaa maba isfahmi karna markay dhaheen waxa igu dhalatay su'aal ah horta waa maxay dhaqan qofkaana caytamaya ee cayda soo qoraya haddana dhaqanka ka hadlaya su'aashaasi sidee isku keeni kartaa waxaan isku dayay horta dhaqan inaan ogaado adiguna waa nala wadaagi doontaa sida aad dhaqanku u taqaanid dhaqanku waa hadalka iyo luuqadda ama fanka iyo suugaanta ama ciyaaraha bulsho ay leedahay iyo sida ay bulshadu noloshoodu qaas ahaan isku fahmaan bulsho meel ku wada nool ama wax ay kaga duwan tahay bulsho meel ku nool bulsho kale oo meel kale ku nool ayaa la yiraahdaa dhaqan su'aashaasi markaan isweydiiyay ee ah qofkaana caytamaya ee dhahaya isku dhaqan manihin dhahaya haddana caytamaya hadalka uu soo qoraya waxa ay ka mid tahay dhaqankiisa mid ka mid ah haddii aad caytantid waxay cadaynaysaa waayo hadalku waxa uu ka mid yahay qayb ka mid ah dhaqanka haddii aad caytantid waxay cadaynaysaa dhaqankaagu inuu xun yahay su'aashaasi jawaabteedu anigu waxay ila noqotay bulsho waxa ay leedahay ama luuqad ha noqoto ama ciyaaraha ha noqoto ama hidde iyo fan ha noqoto suugaan ha noqoto kaasi ayaa dhaqan la yiraahdaa waana wax bulshadu ay bara karto haddaba haddii aan u soo noqdo qaybta labaad barnaamijka ee ah afarta talo barnaamijku badanaa wuxuu ku saleysan yahay ajaanibta qof ajnabi ah ma guursan lahayd haddii aad ku hanweyntahay ama niyadaada ay ku jirto qof ajnabi ah ma guursan lahayd afar talo ayaan kula wadaagi doonaa inta aysan guur ka dhicin haddii uu guur ka dhacay aad la nooshahane dee habba saad isku fahantaan ama aad ku wada nooshihiin oo wax anaga naga weyn naga horeeyay waxay ku cadaynaysaa kaliya markaad video daawatid ama aad qof fikirkiisa dhigaysatid waxay ku sii sahlaysaa in maskaxdaadu ay sii balaarato afarta talo intaan ku siinin su'aal ayaan isweydiiyay maxaa sababa in gabar Soomaaliyeed ay wiil ajnabi guursato ama maxaa sababa wiil Soomaaliyeed inuu guursado gabar ajnabiyeed ah jawaabo aad u tiro badan baa ii soo baxay laakiin laba jawaab ayaan kula wadaagayaa jawaabta koowaad waxa ay noqotay inay ka fikirayaan labada qof ee kala jinsiga ah in ilmo qurux badan ay halka ka dhalanayaan jawaabta labaadna waxa ay tahay marka qof ajnabi ah uu guursanayo inay naxariis badan yihiin haddaba labadaasi jawaab hadda fikir ahaan wax ka siiyo haddii aad ku fikiraysid qof ajnabi ah ilmo qurux badan baad dhalaysaa wixii imaan doono Ilaahay baa garanaya taasi yeesan ku noqon cududaar haddii aad ku fikiraysid ajaanibtu waa naxariis badan yihiin haddii aad ajnabi la nooshahay oo aad isku wadan joogtaan oo aad isfahmaysaan oo ku naxariisanayo waa meesheeda laakiin waxa aad filmaanta ka aragtay ama jilitaanka aad ka aragtay ama aad wax kale aad dad kale ku dhaqmaya aad ku aragtay waa inta kaliya la jilaya ee hamoodi naxariistaasi inay tahay naxariis mar walba taagan waayo bilaadankan adduunka ku wada nool waa shanta farood oo kale isku mid ma ahan halka qof ee aad naxariista ka aragtid ee jilaya kan kale la mid ma aha waxa laga yaabaa inuu Soomaaliga qofkan Soomaaliga xataa inuu ka wanaagsan yahay ka naxariis badan yahay habba waxa ay ku xiran tahay qofka sidaad isku fahantaan naxariistu waxay iimaanaysaa habba qofka sidaad isku fahantaan yeesan cududaar ku noqon ajnabigu waa naxariis badan yihiin laakiin haddii aad qofku aadan naxariis ku dooran ee aad ku dooratay inaad adigu macnaha dee isfahanteen waa meesheedii haddii aad qofka ku dooran awlaad qurux badan ba imaan doonto ee aad adigu ku dooratay inaad isfahanteen waa meesheeda
waayo muhiimaddu waa habba waxa adiga ku farxad gelinaya. haddaba waxaan kula wadaagayaa afarta talo. talada koowaad waxa ay tahay haddii aad ku hanweyntahay inaad qof ajnabi guursatid marka hore waa inaad ka fikirtaa inaad isku fahmi kartaan dhaqankuna haddii aynu Soomaalinaana waxaan ku xasuusinayaa maanta haddii aad xaas tihiin qofka Soomaaliga maalin haday tahay waxa laga yaabaa inuu asoona kula balamin guriga iska soo gargaraaco soo galo. waxa laga yaabaa dadka ajaanibta ah ma yaqaanaan dhaqankaasi. waxa laga yaabaa inuu qofkaaga ka xumaado. gabadhii haddii ajnabi tahay way ka xumaanaysaa. way wax leedahay qofkan iska socdo muxuu yahay aan noo soo sheegin. haddii wiilka ajnabi yahana sidoo kale. laakiin waa in horta marka hore qofkan nolosha aad la wadaagaysa dhaqankaaga bartid. dhaqan xun ma jiro ee wax barasho xun baa jirta. qofka haddaad adigu wax bari karin dhaqankiina waa xumaanaya. laakiin adigu dhaqanka haddii aad taqaanid oo dhaqanka qofka la wadaagaysid waa isfahmaysaa wax walba waa ku fududaanaya. talada labaad waxay soo hosgalaysaa dhaqanka oo ah luqadda. qof idin isku luqad ahayn haddaad tiraahdo okay qofkan ajnabiga ah dhaqanku waa isku fahmaynaa naxariis buu leeyahay laakiin naxariista uu leeyahay luqadiisana ma fahmayo dee albaabaan furaya furihiisana ma haysto weeye. qofkani naxariistu waa hadalka. qofkani haddaad hadalkiisa fahmaynin sidee naxariis ku helaysaa? naxariista ma waxa u taqaanaa qofku inuu wajiga ku wanaajiyo kaliya. naxariistu waa hadalka wanaagsan qofka uu ku hadlayo. naxariistu taabashada ma aha. qofku haddii uu ku taabto ama dhabarka ka taabto ama madaxa ka salaaxo taasi naxariis lama yiraahdo. taa waa dareen labada qof ka dhaxeeya. qofku marka uu fahmo hadallada si u dhacayaan dhaqanku sida u socdo fikirku sida u socdo waxa u sahlanaanaysa noloshu inuu dhan badan ka fahmo. ha isku qaldin marka dhaqan naxariis iyo dareen. qofka haddaad luqadda isku fahmaysaan luqadda aad si fiican u taqaanay ama aad wadanka ku dhalato aad luqadda si fiican ku hadlaysid waxba kaama dhinno waayo habba sa isku fahantaan weeye. waxa aad ku hadlaysid iyo wuxuu ku hadlayaa haddii aad fahmaysid noloshu waa isla janqaadi kartaan. dhaqankuna waa baran kartaan. dhaqankiisa baranaysaa dhaqankaagana wuu baranayaa. qodobka saddexaad waa cunnada. qofkani waxa laga yaabaa cunnada anagu cunno walba waa cunaynaa. dibadaha haddaan nimaano ama wadanka banaankiisa haddaan nimaano wax walba xalaal noo ah waynu cunnaa. laakiin waxaana dadka kaga duwannahay tusaale ahaan dadku cunnada siday u cunaan ama waxay cunaan waa wax iyaga qaas u ah. annagu Soomaali haddayna nahnay badanaa waxaa dhacaysa rootiga shaah inaan ku shubanno sokor ku shubanno kadibna gacanta aan la galno waa cunnadeena waa dhaqan annaga qaas noo ah. waxa laga yaabaa qofku inuu la yaabo qaabka aan cunayno laakiin qofka hadduu yaqaan qaabka ina wax cuntid waxa sahlanaanaysa inuu barto ama waxa sahlanaanaysa inuu kugu tixgeliyo. laakiin haddii aad taqaanay subaxii inta la soo kaco canjeero la dubo saliid iyo sokor iyo shaah inta lagu shubo lisku bajuujiyo kadibna la cuno waxa laga yaabaa qofka inuu ka yaqyaqsiyoodo oo is yiraahdo qofkan gacanta saa ugu cunaya ama saan wax u cunayo maxay tahay. laakiin haddaa marka hore bartid oo afartan tala aad mar walba niyadaada ku haysatid qaabka wax u cunaysid dhaqankaagu siduu yahay iyo luqadaadu sida ay tahay waxa ku sahlanaanaysa qofku inaad isfahantaan. qodobka afraad ee aan kula wadaagayo waa qorshe. noloshaada da'da doonta maanta jir qorshe samayso way waxay ku sahlanaanaysaa mar walba aad qorshe leedahay ee waxaad qorsheynaysid qof walba aad nolosha la wadaagayso waa isfahmaysaan. Soomaali badanaa haddaynu nahnay wax markaasi degdeg baan ku sameeynaa. wax markaa maskaxdeena ku soo dhaco degdeg baan ku sameynaynaa. qofkii waxaan ku qasbeynaa qofkani waxa laga yaabaa maskaxdiisa inay diyaar ahayn. qofkii waxa rataan inay magaalada wada aadaan qofkii inaa cunno gooniha wada karsataan inaa wada hadashaan inaa wax wada daabataan. laakiin haddiise marka hore idin wada qorsheysneen oo subaxii idin qorsheysan hadhooti waxaas baan qabanaynaa ama la soco qofka haddaadan dhihin isla marka xilliga la gaaro haddaad tiraahdo waxaas aan sameyno qofku waa inuu waqti helaa uu ka fikiro uu ku yiraahdo okay waa iga haysaa amba waa sameynayaa. haddii isla markii yiraahdo qofka ha waa iga haysaa waa sameynayaa waa chance aad u wanaagsan waa sameey kartaan. laakiin qofku ha ku qasbin isla markii degdeg ha ku dhihin waxaas hadda aan wada sameyno. badanaa waxay dhacaysa in labada qof aysan isku fahmin qorshe xumada. laakiin mar walba qorshaha hadduu ku degsan yahay waxa ku sahlanaanaysa qofka inaad isfahantaan. qaybtan aan kula wadaagi doono waxay noqon doontaa dadka jawaabaha ay ka soo bixiyeen Instagram-ka su'aalaan ka weydiiyay. aad baan kaaga mahad celinayaa haddii aad Instagram-ka su'aalaha waxyaabaha aan soo qoro aad comment ka bixisid oo aad fikrado ila wadaagtid. su'aasha waxay ahayd ma guursan lahayd qof ajnabi ah. dadka ugu horeeya ee soo qoray ayaan soo qaadan doonaa. qofka ugu horeeya waa Karadet Silva laakiin waa in muslim tahay caruurteydana tarbiyeen karto ayuu ku soo gabagabeeyay. qofka labaad waa Muniira Xasan maya because nolosha islaama fahmi karno isku wadan kumaynan soo korin
laba bay oo kala duwan iyo dad kala duwan baa ku kala soo kornay isku dhaqan ma nihiin haddaa isguursanana in isla keeni weyno baa macquula ayay kusoo gabagabaysay fikirkeeda naciimo xasan waxay ay tiri haa ajnabi waan guursan lahaa waayo waxay ka sayaan micnaha nolosha waxa jira sifooyin badan oo ay lahayn raggeena soo future husband inuu ajnabi noqdo 80% ayaan rajaynayaa bay soo qortay waa fikirkeeda Prince Rashad ma guursan lahayn waayo ajnabiga iyo aniga waxaan ku kala duwannahay dhaqanka haddii meesha kala duwanaansho timaado problem badan ayaa imaanaya xitaa ay ka mid noqon karto isfahanka haddii meesha isfahan dartii timaadana waa dhibaatada sababtoo ah waxa kaliya oo ku dhisan yahay labada qof isla joogooda waa isfahanku waa muhiim ayay kusoo gabagabaysay fikirkeeda Natusha haa waan guursan lahaa because ninka ajnabiga qiimaha dumarka ayuu ka sayaabay kusoo gabagabaysay fikirkeeda Teenay maya ma guursan lahayn sababtoo ah anigoo Soomaali u jeedo maxaa ajnabi ii geenaya gabdhaha dhahayo wiilasha Soomaaliya xushmad ma laha romantic ma aha kaftan ma yaqaanaan iyo waxyaalo badan ka sheegaya waraa waxa loo yiri qofkii timir beerta timir ayaa u soo baxda qofkii tiin beerta tiin unba u soo baxa wiilasha Soomaaliya waa dahab adduunka ayaga ugu naxariis badan uguna fiican fikirkeeda intaas ay kusoo gabagabaysay Teenay Aisha Ilyas maya sababtoo ah ma isfahmayno isku luqad ma nihiin isku dhaqan ma nihiin bay kusoo gabagabaysay fikirkeeda Naaleeye Axlaam haa waan guursan lahaa maxaa yeelay kuwaas ayaa nolosha dhabta ah fahmaya iyo jaceylkaba bay fikirkeeda kusoo gabagabaysay Naadiya bintu Maxamed ma guursanayo waayo ma isfahmi karno xogaa luqadda uu ku hadlaayo tayda ka duwan tahay dhaqankiisa uu keyga ka duwan yahay marka uma dul qaadan karo waxa soo carqalad ahi inay nolosha ahaato wata labada caruurta aan dhali doono way iga saameyn aniga keligay iguma koobna carqaladdu waxa iga fiicnaan lahayd inaan guursado mid intaaba aan wadaagno waka fikirka aan ka qabo mawduucan ayay kusoo gabagabaysay fikirkeeda Naadiyo fikirkeedana wuxuu ahaa qof aan isfahmayno isku luqadnahan oo aan isku dhaqannahay inaan guursado Kostar diiriya maya sababtoo ah xataa hadday muslim yihiin isku dhaqan iyo caado ma nihiin dhaqanka kala duwan dartii inaan markasta isku fahmi weyno macquul wax la garanayo guurso aad wax la garanaya dhashidee bay soo kusoo gabagabaysay fikirkeeda Horiyo Xuseen maya ma guursadeen sababtoo aan ku sababeynaya mar walba waxa muhiim ah qofka aad nolosha la wadaagaysay inaad isku dhalasho haataan iyadoo aan ku sababeynayo isfahanka dhaqanka familada labada dhinac iyo caruurta la dhali doonaba ayay fikirkeeda kusoo gabagabaysay Sara Ahmed waxay tiri haddii aad qof ajnabi ah guursatid waxaad ka mid noqonaysaa familkooda marka aad ka mid noqotine haddii aad wada nooshihiin ama isku meel ku nooshihiin waxaad u noqonaysaa qof shisheeye ah waxay tiri guriga aan anigu deganahay inaan qof shisheeye ka ahaadana ma rabo laakiin kama soo horjeeda in ajnabi la guursado ayay kusoo gabagabaysay hadalkeeda iyo fikirkeeda Warda Baasha waxay tiri dooqa waa cajiib dhankayga haa sababtoo ah mar haddaad qof isku diin haysataan wax ku diidaya ma jirto muhiim ma aha in Soomaali kala guursado laakiin muhiimadu waxa weeye muslim ma yahay waad isfahmaysaan ilaa diinta idin midaysa laba qof haday rabaan inay isfahmaan isku mid haddii labada qof ay isfahmaan rabaan midna dhagool yahay midna caadi yahay ugu dambeyn way isfahmayaan isagoo mid faraha ka hadlaya midka afka indhaha la iska fahmaa mararka qaar laba waa sidee isku fahmaan Samaara Maxamed waxay tiri muhiimada loo guursado waxa ay tahay in alle guurkaasi wax ka siiyo mid labaad ajnabiga waa adoon alle abuuray haddii saas tahayna waxaan kala duwannahay dhanka diinta marka wax noo diiday inaan guursano waa diinta islaamka haddii islaamo wax iga celinaya ma jirto ayay fikirkeeda kusoo gabagabaysay kalabood wuxuu u yiri ma guursan lahayn waayo hooyadayba isku luqad ma ahan marka qof aan hooyaday u kala turjumayo ma doonayo mana guursan lahayn buu hadalkiisa kusoo gabagabeeyay asxaab aad u tiro badan ayaa kommentiyada soo dhiibtay aad bay u tiro badnaayeen intaas ayaan ka soo qaatay inta kale aan soo qaaday waayay fikirkiina ma xumeen laakiin waqtiga oo gaaban iyo dadku in wax yar oo kooban oo muhiim ah ay daawadaan darteed ayaan intaas soo qaatay waana ka raali gelinayaa hadaada meesha iska arag meel walba dunida ku joogtaan Allah kugu xifdiyo videogan hadda ka heshay asxaabtaada waa la wadaagi kartaa wixii fikira commentiga waa nagu wadaagi kartaa waa saaxiibka Shaahid Bisaani meel walba dunida ku joogto mar walba waxaan ku leeyahay Allah kugu xifdiyo assalaamu calaykum